shirkadda Somtel Puntland ayaa daahfurtay mashruuca fiber optiga wajigiisii labaad oo isku xiraya magaalooyinka Garowe ilaa Gaalkacyo. Mashruucan ayaa si weyn wax uga bedeli doona isgaarsiinta iyo tayada internetka dalka ka shaqeeya. Maareeyaha guud ee Somtel, madaxa mashruucan oo uu weheliyo gudoomiyaha Dahabshiil Group ayaa ka warbixiyay mashruucan iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray. mashruucii aanu ka soo bilownay magaalada Boosaaso Garowe Gaalkacyo wajigiisii koowaad wuxuu noogu soo dhamaaday si ammaan ah iyo guul. maanta waxaan u taaganahay dhagax dhig ama xarika jaridda wajigii labaad oo ah Garowe iyo ilaa Gaalkacyo. mashruucaasi wuxuu noqonayaa mashruucii ugu waqtiga degdega badnaa ee Afrika laga sameeyo 450 kilomitir ayaa waxaan ku dhamnaqaynaa ugu horeyn madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo si taama oo muuq iyo mugle noogala qayb qaatay mashruucan la'aantiina aanay wax badan inoo socdeen iyo dhammaan dawladda Puntland heer gobol iyo heer degmo inta aad baan ugu mahadnaqaynaa bulshadii qiimaha badnayd eenu soo marnay ee ilbaxa ahayd ee fahansanayd faa'iidada uu leeyahay mashruucani iyagana tuulo iyo magaalo haddaan ka bixi maayo si guud ayaanu bulshada ugu mahadnaqaynaa waanay mahadsan yihiin. نحن متواجدين هنا في بلدنا الثاني ومن خلال هذا الافتتاح نحب نوجه تحياتنا وشكرنا لأخواننا الشعب الصومالي جميعا وخاصة الرئيس سعيد عبد الله دني. waxaa farxad weyn noo ah anoo ku hadlaya magaca Dahabshiil Group maanta inaanu xariga ka jarno oo si rasmi ah u iclaamino inuu wajigiisii labaad bilowday mashruuca fiber optiga oo aan isleeyahay horumar ballaaran buu wuxuu soo u yahay ummadda Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan kaloo dardaaran labaad bixinayaa awalba sidii aad u ilaalinayseen deegaanka meelaha aad soo marteen runtii si wanaagsan oo laydinku ammaanay baad shaqada u soo qabateen. haddana 230 kilomitir oo Garowe iyo Gaalkacyo ah baasaaka halkaan aad ka bilaabaysaan. waxaa la rabaa marka deegaankaas inaad ilaalisaan geedka macnaha leh aan la goyn meesha ku habboon in la mariyo xarigaas waayo deegaanka inagoo dhan baa dan inoo ku jirtaa. arrintaas waa mas'uuliyad wadareed waa mas'uuliyad gaar ah oo dadka shaqada hayana gaar u saaran. arrintaa waxaan rajaynayaa inaad ka soo bixi doontaan. waxaan runtii ku faraxsanahay maanta inaan bilaabayno qaybtii labaad ee mashruuca oo Garowe ilaa Gaalkacyo ah. waxaan sidoo kale ku faraxsanahay in si nabadgelyo ah oo wanaagsan ay noogu dhamaatay mashruucii Boosaaso ilaa iyo Garowe. shaqadaas baaxadda leh waxaa noo suurtageliyay runtii wada shaqayn wanaagsan oo dawladda Puntland iyo shacabkeeda aad baan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha Siciid iyo dhammaan dawladda iyo dhammaan runtii shacabka Puntland oo qayb weyn ka ahaa mashruucan inuu hirgalo. waxaan sidoo kale aad uga mahadcelinaynaa dhammaan halwadeennada guud ee muxuu ah ka shaqeynaya mashruucan oo uu kow ka yahay jaamac. waxaan runtii ku dardaarmaynaa in maadaama mashruucii qaybtii labaad ay si rasmi ah inoogu bilaabatay inaynu dadaalkeena muujino. khibrad badan baa hadda aan yeelanay oo intii aan ka soo shaqeynaynay 2 sano. waxaan rajaynayaa in waqti ka dhow oo muxuu ahaa degdeg ah aan ku dhamayn doono inta hadhay. labada company Dahabshiil Group iyo Overseasna insha Allah dadaalkii ay hore u wadeen iyo mid ka laaban ayaan rajaynayaa inay shaqadu ku socoto. jooga waxa weeye in wajigii labaad ee xarigan keebalka ah ee ka yimi Boosaaso Garowe yimi hadda Gaalkacyo maanta loo xarig jarayo. awalan marka koowaad Ilaahay baa mahad iska leh. marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Deni oo la'aantiis uusan hawshaani
aysan shaqayseen